Asalaamu calaykum. Sheekadayna maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan ayaa ahayd gabadh ganacsan jirtay oo waxba nolosha ka aqaan. Inta badanna waxay ku mashquulsanaan jirtay nolosheeda. Hooyadeedna waxay ku odhan jirtay, hooyo imika waad weynaanaysaa, waxaa samaysaa mabaxa iyo guriga wax ka baro. Ay hadhow taale aad bay nagu noqonaysaa marka lagu soo doono gabadhaanan garanayn mabaxa. Markaasay ku odhan jirtay, anigu mabaxa waxba kuma falayo, qofka ay soo doonanayaan anigu doonanaya mabax ma doonanayo. Islaantu laakiin waxay ku odhan jirtay, imikaba adiga ayaa arki doona, beritoole marka mabax lagugu soo furo la idhaahdo mabaxa ma garanayso, anigay ma anaanan kartid ee adigu isxaraano. Gabadha laakiin waa ay diidi jirtay, hooyadeedna inta badan way isku xanaaqi jireen. Laakiin gabadhaasi si walba hooyadeed ugula xanaaqsan tahay timaha u jiidayso, haddana waxay ku odhan jirtay markay hooyadeed xanaaqayga dhammaysato, waayo hooyo waan ogolahay. Idan markii beri islaantu ku tiraahdo inataydii kaalay waxbaro waxay ku odhan jirtay may hooyo, shaqadaydii baa sugaysay, iga damatay gareeye. Gabadhii markii dambe nin ay isticlaadeen, sidii bayna ku guursatay, hooyadeedna iyada ku warwartan inayna babaxa garanayn ay haddana u guurisay. Islaantii ay u ahayd sadohda ayay u tagtay, islaantu si fiican ayay u soo dhaweysay, laakiin markii dambe waxay ka dalbatay inay cunto kariso. Waxay ku tiri, gabadhaydii yarayde mala unay cuntadaadii gurigan kuugu horeysay, orod mabaxan gal oo noo soo samee cunto, kaqso anigii inakaygu waa aan ku sugaynaaye. Gabadhii waa ku tiri, ma cunto ayaad gabadha markaaba ka cuntiin, waa ay gacanteeda ku samaysay, maana sugayn barye yar siday gurigan ula qabsato, mise durba waxbay samaysaa. Haabay ku tiri, maalintii sidaa u soo gasho carruurnimadaba cunto ayay gurigan ka samaysaa, tiibaana lagaaga daahayee orod meeshan ka kaca oo soo samee. Gabadhii sidaa isku dhaafisay tiri, alla hooyo maanta waan xanuunsanaya, maalin kale iga dhig, maalin kale ayaan iin samayn doonaa. Maanta daalkii arooska ayaa igu jira. Markaas islaanta ku tiri, maya anaga waxaasaa noo dhaqana ee orod gal mabaxa oo soo samee, xitaa waxa ugu yar aad garanaysid sidaana cunnown, ishooyinka kale ayaan eegi doonaa cuntadaada. Gabadhii mabaxii bay soo gashay, waxaynii bilowday inay istiraahdo bal daqiiq samee oo ka samaysabaayeen. Si walba way u kari weyday, ninkaygii bay ku soo noqotay ku tiri, anigu cunto ma garanayo ee hooyadaa u sheeg, ayna wani daalanahay. Keegii baa ku yidhi, oo adigu maxaad cuntada u baran weyday, hooyo imika maxaan ku idhaahdaa, gabadhan cunto ma garanaysa miya, orod imika bal wuxuun isku day oo wuxuun soo samee. Iyo waxaad ma ogolaanayso. Markaasay ku tiri, adigoo galaysiiyo waxaad ku tiraa way xanuunsanaysaa, aniguna waa aan baran doonaa oo si aayara ayaan wax walba u fahmi doonaa. Laakiin ninkii waa uu diiday, waxa uuna ku yidhi, adiga ayay ku taalaa ee orodiga dultag. Gabadhiina fikir ayaa googooyey, waayo waxay ahayd maalintay samaynaysay, habeenkii baynay sii ceshatay siday aroorta u samayso sabaayadii. Aroortii markay sidaa u soo toostay, wax walba waa ay samaysay, si walba way u lawaxday, way kari weyday inay daqiiqda kala furto. Gabadhiina markii dambe waxay istiri, haddaba islaanta maxaad ku tiraahdaa, daqiiqda nama kala furmayso, iyaguna qureec bay xilligaa kaa rabaa. Waxaynay niyadeeda ku haysay inay islaanta u tagto oo ku tiraahdo waxba ma garanayo, haddana way ka soo noqonayso wax islaan, hadday maqasho islaantu imikadaabay ka odhan inankayga fur. Sidaas bayna u soo socotay iyadoo ka fikiraysa inay tagtay inay iska joogto. Markii dambe gabadhiiyo meesha soo socda ayaa way silbatay, waxayna ku dul dhacday. daqiiqdii waxay aragtay simatay, markaasay tiri, ada daqiiqdii sawtan simatay tolo, sidee baan idhi, markuu dul fadhiisigan ku dul dhacay ayaa sibnaysiisay daqiiq. Markii dambena waa ay shiishay, markay shiishayna waxa ay soo baxday wax aad iyo aad u qurux badan. Gabadhii markay aragtayna waxay bilowday inay mid walba ay ku dul fadhiisato ay samayso, ay ku dul fadhiisato ay samayso, ilaa intay dhammaysay oo ay wada diyaar noqdeen. Markaasay tiri, imika ayaan siinayaa siday u cunaan. Sooskiina waa ay isbarbaratay, sidii bayna isagana kiina ku samaysay. Xaafaddii markii u geysay ayay xaafaddii aad ugu faraxday. Markaasay ku tiri, ka sheekeeya haddaba sabaayadana sameeyey, waxaan u malaynayaa in ayay cajimin doonto. Islaantii baa ku tiri, tabtay u samaysan tahay baaba laga yaabayaa inaanan ka goyn ee imika subbal handhandhamanye. Islaantii iyo inakaygiiba waxay bilaabeen inay cuntadii si fiican u cunaan. Inankii markuu dhameeyey ayuu wuxuu ku yidhi, hooyo gabadhan cuntaday maanta samaysay anaaba ka yaabayba. Markii hore waxay igu tiri ma garanayo, laakiin waxay soo baxday qof wax walba garanaysa. Imika hataa
maxay isku yeelyeelaysay xalay oo dhan markaan ku lahaa cunta inoo samee. Islaantii baa ku tiri, oo matayda ayay ka macaan tahay tan maalin walba ku samayn jiray. Imikaba waa isku mid, imikaba ha igu odhan, ta gabadhayda ayaa wanaagsan, waanu kaa xanaaqi doonaa, haddaad waxaad tidhaahdid. Markaasuu ku yidhi, maya hooyo sidaa ma odhanayo, shaqadaydii ayaan tegayaa, adigana qof kula mida ma jirto, albaabka iska soo xidha. Gabadhana shaqada ha ku badin. Markaasay islaantii ku tiri waayahay, orod iska soco. Waxayna bilowday inay alaabtii soo ururiso siday u qaato. Gabadhii bay ku tiri kaale qaad haddaba, alaabtii waan ururiyey oo maydho. Laakiin gabadhu ma ay maqlayn, waxayna iska wadatay qadadeeda in ay samayso. Islaantiina way maqli weyday. Islaantii baa ku tiri maaha waa mashquulshantahay, aniga ayaa kuu keeni doona ee adigu iska joog. Gabadhuna may maqlayn oo waxay ku dul fadhiday ceeshkii siday u samayso. Islaantii sidii ayay ku soo qaaday siday u geyso mabaxa, laakiin mabixii markii dambe waxa ay ku aragtay gabadhii oo ceeshkii kolba ku dul fadhiisanaysa. Gabadhuna muusiga ayay dhagaha kula jirtay, markay ka kacdana ceeshkii oo sidmaya. Markaas islaantii ku qayliday ku tiri, naama waxaanaad ku fadhiisanaysid ayaad anaga noo samaynaysay, aan anaguna kugu lahay wuu macaan yahay. Islaantii markii dambe wadhungacdo markaasi wixii oo dhanba banaanka soo dhigtay tiri, waan ogaa inuuna inakaygu waa gabadhaan waxba garanayn uu keensanayay guriga. Islaantii markay cuntadii iska dhammaysay ayay gabadhii ku tiri, alla hooyo anigu mar hore waan kuu sheegay inaanan waxba garanayn, habkaasoo keliya ayaana ii soo baxay, ee waan ku baryayaa adigu i badh. Markaasay ku tiri kuma barayo, inakaygana imikadaas ayaan kaa furanaya. Gabadh cunto garanaysa ayaanan u dhisayaa, adiguna sidaas baad guriga ugu baxays. Inanka wuu ku soo noqday ayay ku qaylisay islaantii ku tiri, kaale gabadhaada eeg, cuntadan cunanay waxay ku fadhiisanaysay. Markaasay ku tiri anigu waan ii sheegay inaanan cunto garanayn, idinkaana igu qasbay, aniguna wax kaloo sameeyey waa waayey. Markaas islaanta ku tiri, oo maad nuugu fadhiisan, maanad odhanayn ibara, waxaad ku fadhiisatay ayaan cunanayn maantoo dhan. Hungaa anigu waaban kala istaagi kari waayey. Intaydiina waaba ku xanaaqay, waxauna ku yidhi gabadhaan cunto garanayn aniga wayga furan tahay, adiguna xabad ku sii darsatayba aad naqaayintay oon cuntadan ugu fadhiisatay. Si walba gabadhii waxay ku tiri iga raali noqda, waan ka xumahay wax walbaan sameeyey, idinka ayaan ku qasbay, laakiin waa ay diideen. Islaantiina waxay ku tiri wuxuu inanku ku yidhi maanan maqlayn, gurigayga nooga bax, alaabtaadana guro, dib dambaysan hanuugu soo noqon, waraaqadaadana waanu ku soo gaarsiinaynaa. Sidii bayna gabadhii iskaga soo baxday, gurigii ninkeygana waa ay ka timiday. Hooyadeedna way ku soo noqotay iyadoo si una ooyeysa. Hooyadeedna waxay ku tiri waxaan hooyo ku lahaa shaqada u baro, waxaanu joognaa caalam noocaasa, adiguna waxaad iska dhigaysay gabadh aqoon leh, oo taa imika aqoontaadii ha ku anfacdo. Laakiin hooyadeed waxay ku tiri wax walba way hagaagayaan ee iska aamu. Sheekadeennina sidaas bay ku dhammaatay.